waa dugsiga Al-Nuur ee dadka aragala waxa uu ku yaalaa bartamaha Muqdisho subax walba 7:30 daqiiqo. halkan waxa isa soo taaga gaari bas ah oo ay la socdaan ardayda dhigata dugsigan mid ayay uga soo degayaan baska isla markiina waxa ay isu taagayaan safka iskuulka ee daabuurka loo yaqaano. safka aroornimo waxaa loogu talagalay in ardayda loogu diyaariyo jir ahaan iyo maskax ahaan si ay u wajahaan hawsha waxbarasho ee hortaalla. kadib dhowr tix oo gabayo iyo aayado qur'aan kariimka ah waxa ay galayaan fasallada. Cabdiraxmaan Cali waa arday ku foogan maadada sayniska waxa uu si fiican u bartay isticmaalka qalabka braille-ka waxa uu qaadanayaa casharro wuxuu rabaa in uu macallin noqdo mustaqbalka aad ayuuna ugu rajo weyn yahay inkastoo uu wajahayo caqabado. ciladaha ugu badan aan la kulmay waxaa ka mid ah Muqdisho amnigeeda inta badan aad u hooseeya laakiin xilliga hadda uu soo wanaagsanaana mararka waxaa jira oo wadooyinka ay xiran yihiin iskuulka isa ku suurtagelay in ay imaadid. xirfadaha gacanta laga qabto waxaa sidoo kale ardayda lagu baraa dugsiga Al-Nuur hadafkuna waa sidii ardaygu uu ku heli lahaa waxbarasho kaamil ah iyadoo lagu jiro casrigan tiknoolajiyadda. waa fasalka 8aad ee dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur ardaydu waxay ku mashquulsan yihiin garaacista waxbarashada kombiyuutarka balse su'aashu waxay tahay ardaydan markay cilmigooda bagaan dadka wax shaqaalaysiiya ma haystaan oo ma u diyaarsan yihiin tasiilaadka dadka aan aragga lahayn. maxamed axmed waxa uu ku dhashay arag la'aan wuxuuna waxbarashadiisa ka gaaray heerka jaamacadeed ee shahaadada masteredka hase yeeshee muddo 5 sano ah ayay ku qaadatay inuu shaqo macallin jaamacadeed helo qalinjabintiisa kadib. tasiilaadkiina ma yaalaan oo tasiilaadkii waa yar yahay dadkii aqoonta lahaana waa ka joogaan hase ahaatee dawladdii aaminaadeedii iyo dadkii naafada ahaa guud ahaan iska fogeynteeda gaar ahaan dadkii araggala ah yaa ku jirtaan dhihi karaa. iyadoo ay jiraan caqabadahan ayay tahay in ardayda ay iska sii wataan waxbarashadooda rajaduna tahay in Soomaaliya ay gaari doonto heer fursado isku mid ah ay ka helaan dadka oo dhan. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh, BBC, Muqdisho.